maxkamadda gobol degme ee Gabiley ayaa maanta xorriyadoodii u soo celisay xogayihii komishanka doorashooyinka heer gobol ee Gabiley iyo 3 aqoon-yahan oo ku xidhnaa xabsiga magaalada Gabiley maalmihii u dambeeyay kadib markii maxkamaddu fasaxday eedeysanayaashaasi xubnahani oo lagu eedeynayay inay ku kaceen falan amni darro horaantii toddobaadkii hore isla markaana ay ku jireen ilaa waqti xaadirkan ayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Gabiley oo ka qaaday dhalinyaradani la sii daayo aan wax ka weydiinay sii deyntooda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin isla markaasina lagu waayay faldigiyeedkii lagu eedeynayay maantooda faawal batee وصل سوء ذي ما دام لقوا ذي إنهم كانوا فلان من الجفا وحنا كان قاعدين يعني ما أنت هو يبشط هاي نشان لأن هو كراي عدالة ده تاسع لنقوا أي حد كغابتها بقولي استحيل هذا وحنا كان قاعدين يعني ذين تاسع هاي واحد شرع درا رعاي أو عن شرين قبلي ولا وذوق سويح لبعتنا كتاجن وحنا إلهي وقبريه إن عدالته سيدا أي ما أنت نوسي ديسي أيوسي أركيسو jecel horumarka waxaan jecelahay markasta horumarka ka socda gobolka Gabiley waxaan nacabahay markasta dib u dhac ku imanaya gobolka Gabiley sidoo kalena qaar ka mid ah dadweynaha maxkamadda ku soo xoomay iyaguna arintani ka hadlay tagay ninkii amarka bixiyay oo isaga socday waa in la helaa waayo bini'aadamku haddii xad loo kala sameyn waayo de waa la isku dhacayaa waxa weeyaan ninkii xukun hadaan jirin oo cadaalad aanay jirin wadadeeda la mari waayo waa la isku dhacayaa dhinaca kalena xeer ilaaliyaha gobolka Gabiley oo isaguna arintani ka hadlay ayaa sheegay in laga odeeyay sii deyntaasi oo aanay dacwadaasi u bislaan dhageysi isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri loo soo gudbiyay qoraalo kamid ah raaligelin ay ka bixiyeen dambiga galaan eedeysanayaashu iyo halkan gungaarka ka suganay taliska biliiska ee gobolka taliyaha qaybta gobolka wuxuu isaguna soo gudbiyay dacwad ka noqosho maadaama eedeysanayaashu iyo maayirkii gobolka iyo barasaabkii guud ahaan la isla gartay in eedeysanayaasha xorriyadda loo celiyo sidaas ayaana xorriyadda lagu celiyay eedeysanayaasha wax dacwadoo meesha ka dhacday ama nami jirin waxaana lagu celiyey apologies la sheegay in maxkamadda inay siiyeen dambigii ay galeen aawadeed dhalinyaradani aqoon-yahanada ah ee maanta xabsiga laga sii daayay ayaa bartamihii bishii hore waxa ay dhaliilo u soo jeediyeen maamulka degmada Gabiley Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV Gabiley